Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kanaalka hoyga bulshada kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Waxaanu maanta kaga hadli doonaa xogihii u dambeeyay ee xanuunka adduunka oo dhan kaga qaylisiyay ee coronavirus. Waxaa maanta qaar ka mid ah masaajidada waaweyn ee dunida ku yaal aan laga tukan salaadii Jimcaha sababo la xiriira xanuunka adduunka kaga qaylisiyay ee coronavirus ee loo yaqaano COVID-19. balse waxaa xusud mudan in dhulka Soomaalida laga tukaday masaajidada guud ahaan si guudna lagaga hadlayay xanuunkan coronavirus. Sacuudiguna waxa uu hakiyay salaadii lagu tukan jiray Xarameyn iyadoo maanta aan halkaas lagu tukan salaadii Jimcaha. Masaajidka Nabi Maxamed nabad iyo naxariis korkiisa ahaatee oo maalin kasta oo Jimcaha ay ku tukan jireen kumanaan qof oo muslimiin ah ayaa maanta cidla ah oo aan cid isugu imaan, waxaana sii kordhaysa cabsida laga qabo coronavirus. Sawiradan oo la qaaday saacado ka hor khudbadda Jimcaha laga baahiyay bogga Xarameyn. Masaajidka Al-Nabawi ee magaalada Madiina ayaa la xiray saacado ka hor salaada Jimcaha, waayo waxaa laga warhelay dad doonaya wixii dhacayaba ha dhicine masaajidka ayaan ku tukanana oo cibaadadayada ayaan sii wadana. Maamulka masaajidka ayaa albaabada isugu dhuftay cabsi weyn ay ka qabaan cudurka faafaya ee safmareenka ee coronavirus. Dhinaca kalena labada sawir ee isku dhagan oo muujinaya farqiga u dhaxeeya wadamada halbowlaha u ahayd wadada isku xirta Singapore iyo Malaysia ka hor iyo kadib markii ay Malaysia godoomisay dalkeeda sabab la xiriira cudurka safmareenka ee coronavirus oo adduunka oo dhan saameeyay. Dhinaca kalena kuwani waa goobaha ugu mashquulka badnaa ee dunida oo sawir laga qaaday oo haawanaya cudurka coronavirus awgeed, waxaana ka mid ah goobahan sida xeebta Lubnaan, webiga Faransa iyo Italy Milano iyo sidoo kale Delhi. waxay ahaayeen goobo mashquulkoodu saayida oo iman jireen dadka dalxiisayaasha iyo dadka u dhashay wadamadaas oo mararka qaar ay chance helaan ay ku nasan jireen, balse dhammaantood way haawanayeen. waxaana sababay xanuunka coronavirus oo ah mid aan la arkayn laakiin si dhaqso ah ugu faafaya adduunka oo dhan. waxaan Allah ka rajaynayaa dhammaanteenba inuu Allahna hareer mariyo aan nahay dhammaan ummadda muslimiinta si guud iyo si gaaraba. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xogihii la xiriiray ee cudurka safmareenka ee coronavirus oo saacadba saacada ka dambaysa sii kordhaya. intaan ku kulmi doono mowduuca lamid ah, walaalayaal mowduuca sii share gareeyo saaxiibadaada kale iyo walaalahaaga kaleba sii gaadsii. mahadsanid fi amaanillah.